بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، xalqadan waa xalaqooyinkii aan isku xasuusin jirnay yani sidaan uga faa'iidaysan lahayn bisha ramadaan. xalaqad hore waxaan kaga soo hadalnay qaybo ka mid ah dadka noocyadoodii bisha ramadaan. haddana insha allah iyadii baan sii wadayna annagoo weliba yani si kooban intii hore aan ka hadalnayna aan usoo celin doono insha allah. qaybaha dadku waxa weeyaan bisha ramadaan, siduu sheekh maxamed saalax ibn cuthaymiin uu ku sheegay kitaabkiisii majaalisu shahri ramadaan, oo runtii kitaab aad iyo aad u qiimo badan ah. wuxuu yidhi qaybta koowaad waxa weeyaan qof muslim ah oo baalig ah oo caaqil ah oo haddana neg oo awooda soonkii kana nabadgalay wixii soonka u diidayay. qofkaasi soonkii waa ku waajib hadduu qofku muslim yahay, haddana baaliq yahay, qaangaar yahay, haddana caaqil yahay oo wax garanayo, junuun iyo madax yani madaxiisu maartay uusan isdaba marin, haddana neg oo aan musaafir ahayn, awoodna ule inuu soomo, kana nabadgalay wixii soonka u diidayay sidii dhiigga caadada iyo wixii lamid ah. qofkaasi soonku waa ku waajibay, waa inuu soomaa markii bisha ramadaan la gaaro. yani kan labaad waxa weeye qof yar oo yani aan qaan gaarin, ilmo yar oo aan qaan gaarin, ma garatay, qofkaas ilmahaas yarka ah soonku kuma waajibin, laakiin in lagu guubaabiyo oo runtii lagu tababaro marka uu yani mararka qaarkood aad bay u fiican tahay, si marka uu weynaado yani ay ugu sahlanaato. weliba haddii isaga uu doonayo, waalidiinta qaar baa laga yaabaa marka ilmahooda inay u diidaan iyagoo shafaqo iyo naxariis ay ka tahay, laakiin xaqiiqatan shafaqada iyo naxariista dhabta waxa weeye ilmahan in khayrka lagu barbaariyo oo la baro inay soomaan, si ay markay weynaadaan oo yani muxuu aha keligood ay yihiin ay u fahmaan mas-uuliyaddaas iyo soonka yani qiimihiisa iyo waxa ilaahay subxana watacaala ugu talagalay. ama haddii hadda ayagoo xataa wada roonroon oo qaarkood inay baaluqeen laga yaabo, waalidiinta ay u haystaan inay yaryar yihiin oo leeyahay weli ma awood uma laha, ma kari karo, yani marka iska cun, markaad weynaato oo aad xoogeysataad soomi doontaa. yani arrintaas waalidiinta waxaan leenahay ha ka fiirsadeen, hana ogaadeen ilmaha inay qaangaareen, si ay u ogaadaan yani maaragtay ilmahaasi inuu ku waajibay in kale. haddii uusan qaangaarin yani kuma waajibin, laakiin in lagu tababaro aad iyo aad bay u fiican tahay. qaybta saddexaad ee qaybaha dadka bisha ramadaan waxa weeyaan qofka waalan. qofka haddii uu waalan yahay, qofka soonkuma waajibin. soonkuma waajibin maxaa yeele caqliga ayaa manaatu takliifa. caqligii haddii la waayey, haddee yani wax lagu yani waajiba yani waa salaadna waajib kuma aha, soonna waajib kuma aha. nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi rufica alqalamu can halaatha, saddex qalinka waa laga kor qaaday. yani waxa weye saddex qof qalinka waa laga kor qaadayo wax loo qoraayo ma leh. waxaa ka mid ahaa can ilmajnuuni xataa yafiiq, kii waala ilaa iyo uu soo miirsado, ilmihii yaraa ilaa uu qaangaaro, kii yani hurday masalan ma aragtay haddii uu hurdada ku yiraahdo waxaan ma aragtay aan wanaagsanayn, loo qori maayo ilaa uu soo tooso iyo wixii la mid ah. marka qofkii waalaana isaguna soon kuma waajibin way. qaybta afaraad waxa weeyaan aan xalqadan kusoo gabagabaynayno qofka gaboobay oo gabowgiisa uu gaarsiiyey in maskaxdiisiba ay tagto oon waxba kala garanaynin, ilaa uu gaaray marxalo la yidhaahdo marxalatu lhadayaan. marka wax uu kala garanayo, wax wanaagsan iyo wax khaldan ma jirto. qofka noocaasana waxa weeyaan soon kuma waajibin, xataa icaam kuma waajibin, cunto in laga bixiyo kuma waajibin. maxaa yeeley waxaa ka dhacay takliifkii iyo waajibkii saarnaa ee cibaadada ka saarnaa oo dhan baa ka dhacay, maadaama caqligii uu tegey. soonna kuma waajibin, in laga bixiyo cuntona yani maalin walbo oo soonka ka midana kuma waajibin. intaas oo qaybood waxa weeyaan waa qaybta aan uga hadlayno xalaqadan. waxaan kusii wadi doonaa xalqadaha kale, qaybaha kale oo qaybaha dadka inoo haray. hada wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh.